ورحمة الله وبركاته مدن قدومية كسر دواء سكول كباربر كيال مدى دركينلي ما أنتو حاي نوب لعبنا يوم كهربنا إن نوفرتد امتحان كي دكسية دحى أو قبل كبنادر قارن حفيزك وحبرشة إن سنة كيسي أفراد وقبنا امتحان كان دكسية دحى سنة كي كواد امتحان كلقبتي أرديدي قشي سنة كان فونفور أي نوفرسا أو تاس النجس عيد دون أرديدي دكسية سرفرسو إن حكتو هذا aan tixraac u hayno anaga shahaadada dugsiga xasuusinay imtixaanka wuxuu ka dhici doonaa 76 xarumood 1590 ay ardaydu fadhiyaan dhammaan degmooyinka gobolka Banaadir ayuuna ka dhacay hore aag gaar oo ka dhici jiray laakiin hadda sanadkan waxaan ku darnay degmooyin badan banaanka dhanaan lagu qabtay tirada guud ee ardayda galaysa imtixaanka waa 31000 arday 688 oo dhadigu yahay 13973 labkanu yahay 17751 arday ardaydaas oo dhan waxa ku sii jiro 18 arday oo baahiyaha gaarka qabo oo 17 dhagoole yihiin hal ardayna ardayda oo culus yihiin 12 arday oo kamid ah waxay ka yimaadeen dhulka hadda al-shabaab laga xoreeyay oo aanan iskuul hor u lahayn meel imtixaan ku gal lahayn fursad waxaan siinay imtixaanka oo qayb galaan sidoo kale 3 arday oo kamid ah oo isbitaal ku jirtay imtixaanka ayaan u geynay oo imtixaanka isbitaalka gali doona shaqaalaha guud ee imtixaanka nagala shaqeynayay bilawgiis ilaa hadda waxay gaarayaan 2339 shaqaale ah oo ilaaliyaasha imtixaanku ay yihiin 1700 ilaaliya kormeerayaashu ay yihiin 97 kaaliyahana uu yahay 129 nadaafada iyo xamaaliga nagala shaqeynayaan ilaa 300 wajigiisa koowaad waay wajiga labaad shaqaale kala hor la sii dhiman marka ku soo dhawaaw waana maasantan mudan gudoomiye